haldoorka waayeelka waxgaradka culimada iyo qoorweynta dhalinyarada deegaanka fadhiga ee degmada Garada Galbeedka gobolka Sanaag ayaa si weyn u soo dhaweeyay musharaxnimada gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya Kulmiye oo u sharaxan yahay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Xasan Maxamed Cali Gaafadhi isla markaana sheegay inay si weyn u soo dhaweynayaan una taageersan yihiin musharaxnimada wasiir Xasan iyagoo dadweynaha deegaanka fadhiga aanu kala hadhin taageerada wasiirka isla markaana saaka warbaahinta la hadlay ayaa waxa hadalladoodu ka mid ahaa sida tan wasiirka caafimaadka ahna musharaxa gudoomiyaha Kulmiye maanu halkan ku taageerin waxaanu leenahay golaha Kulmiye sare ha uga tanaasilaan maanta waayo hore uga tanaasilay gudoomiyaha xisbiga Kulmiye maantana waxaanu leenahay uga tanaasil waxaanu leenahay markaa ha loo tanaasilo saasaanu hadlaynaa musharaxa gudoomiyaha ha loo daayo maanta Xasan Gaafadhi waxaanu taageeraynaa wasiirka caafimaadka loo daayo Xasan Gaafadhi annaguna sidaas ayaanu ku raacsanahay waa degmooyinka Ceelaf Weyn iyo Garadag iyo Argaabo majority waa sidaas aanu ku raacsanahay taageeraynaa wasiirka caafimaadka Xasan Gaafadhi Cali waa nin ku habboon xisbiga Kulmiye oo hanan kara oo xirfadda iyo aqoonta uu u leeyahay ku hanan kara waanu ku taageersanahay waa nin aqoonteeda iyo xirfadeeda iyo xeeladeedaba u leh waxaanu leenahay ha looga tanaasulo oo nin kasto isu soo taageeba ha uga tanaasulaanu leenahay maanta sidaasaanu ku taageeraynaa wasiirka caafimaadka inuu ku habboon yahay musharaxa Xasan Gaafadhi musharaxa gudoomiyaha xisbiga Kulmiye isu soo sharaxay anagoo ku hadlayna ku loo dhiibo oo xisbiga nin hanan kara yahay gudoomiyenimada musharaxa laguna wareejo xisbiga Kulmiye baanu taageersanahay anagu waxaanu reer Fadhiga waxaanu ku taageeraynaa xisbiga Kulmiye Xasan Gaafadhi in musharaxa in loo dhiibo xisbiga Kulmiye gudoomiyenimadeeda oo yahay nin wanaagsan annana aanu ku kalsoonahay wanaagsan yahay waana ku taageernay Xasan Gaafadhi Cali oo u taagan musharaxnimada gudoomiyaha xisbiga Kulmiye waxaan leeyahay gudoomiyaha looga tanaasulo maanta wasiirka caafimaadka ahna Xasan Gaafadhi oo musharaxnimadiisa looga tanaasulo oo madaxsare warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland